dhaho abaayo ama abowe waxaan haddaa cuntid waa sun oo waa ku dhimanaysaa maada cunteen laakiin ismaha waxay maanta ku leedahay shantan sun haddaa ka baxdid caafimaad fiican ayaad helaysaa caafimaadka fiican wax lagu doorsado male qofka binu aadanka inuu caafimaado wax uu ka jecel yahay adduunka male hantida ugu badan adduunka dad badan oo la siiyo oo caafimaadka weeye waxay dhahaan hantidan dhan ma bixinay caafimaad ma ku bedelanay haaya dhahan qofka ila nolosha dhan ayaa caafimaad ah marka caafimaadkaaga si uu kor ugu kaco shantan sun haddaa adiga tahay waa inaad joojisid haddii kale waa sun maalin kasta korkaaga galaayo cunto ahaan uma cunaysid laakiin waa dhaqankaaga waa hadalkaaga waa fikirkaaga ay ku leedahay walaasha shantan sun dadka ahni ka fogow ayay ku leedahay haddii kale adduun iyo aakhira ayay ku hoojinayaan ayay walaasha ismaan ku leedahay haddaa adiga tahayna kasoo baxa ayaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeeni ahaa toosinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo walaashiini ismaha khaliif cali oo mar kale idiin sidaa wax tayo leh oo qalbada uran maanta waxaa idiin soo diyaariyay shantaas sun oo dilaaga ah oo maantana bulshadeena ku badan tahay oo wax ilaahay naga manacay ah laakiin dhaqanka binu aadanku way u badan yihiin ilaa haddartaan maadaama anaga islaam nahay nalaga manacay welina aan ku dhex jirno waxaa dadka faqriga iyo gaajada iyo hooga colaadaha baaba-a waxyaabaha keena waay maxaa yeele waa alacaasin waana shantaas sun qofka hadduu noloshaada soo galo hadduu nin kuu noqdo hadduu naag kuu noqdo haddee saaxiib kuu noqoto ilmahaagana kaba daranbo inaad u quurtid ma aha waalidkaaga oo kale inaad u ogolaatid maaha inay dadka shantan ka mid ah noqdaan inaad ka waanisid waa marka maanta kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabigeena maxamed calayhi salaatu salaam wixii ka sugnaaday maanta reer galbeed inay baareen cilmi ahaan loo helay waxaa lasoo helay shantan ee ismahan maanta idiin sitaa shantaas oo sun dadka qowmiyadaha iyo dadka iska leh inay dadka ka faqrisan yihiin inay dadka ka dibdhac badan yihiin inay dadka muxuu ahaa ka dagaalo iyo buuq badan yihiin dagaalo ku dhaco inuu faqri ku dhaco inuu balaayo badan ku dhacdo musiibooyinka adduunyada ugu waaweyn waaye shantan haddaa iska joojisid oo adiga waqtigaaga isgelisid oo dadka inay ka fogaatid noloshaada wax ayaa iska bedelaya iyo walaasha ismahan ku leedahay walaasha ismaha waxay ku leedahay shantan sun haddaa adiga tahay ka bax haddaadan ahaynoo dad noloshaada ku jiran iska saar ayay ku leedahay waa caafimaad daro maadaama aan ku jiro barnaamijkeena ahaa caafimaad fiican ma rabtaa maanta waxaa idinkugu soo qaatay shantan sun ka tag haddaa caafimaad fiican rabtid shantan sun dadka ka tag haddaa adi tahayna nafsadaada kuuka bilaab marka waxaa ku leeyahay anoo warka kugu badinayn hore ayaan kugula galayaa shantan sun waxaa kowka dadka maseerka iyo xasadka badan haddaa adiga tahay walaashii qalbi uroona iyo qalbi uroona qof maseer badan oo xasad badan horta hore maseerka iyo xasadka laba ma kala aha ogaada waa isku mid qof hadduu mar maseer badan yahay waa xasad qof mar hadduu xasad badan yahayna waa maseer labadu waa isku mid aniga markaa cilmi ahaan ama maskaxdeyda ilaahay isiiyey aan ku baaray aan ka fikiray waa wax laba eray unbay kala yihiin iyo laba wax laakiin marka aad u fiiriso qofka muxuu uga maseeray walaalkiis wuxuu la siiyey ilaahay siiyey muxuu uga maseeray walaalkiis wax fiican hadduu ku arko muxuu uga maseeray maxaa yeelay waa xasad marka haddaa qofka muslimka ilaahay kitaabkeena qur-aanka iyo sunnada nabigeena maxamed calayhi salaatu salaam ka sugnaatay qofka mu'minka oo dhabta waa qofka waxa uu nafsadiisa la jecel yahay walaalkiisa koo la jeclaada haddii kale laa yu'minu axadukum ilaa yuxibu liaqiyi maa yuxibu linafsi ma fahantay walaalka mu'minka kale waxa aad nafsadaada dhurta u jeclo waa lagu dhahaa haddaa xadiiskaas ka talaabsanayne waxaa kugu dhacaya cudurkaasna waxa waa stress xasadka iyo maseerkana stress uu leeyahay stresskana dhicaamadiisa markuu korka kugu bato maanta dhan waa naxee maanta dhan waa xasdee maanta dhan waa dhibsanee maanta dhan waa caytame maanta dhan waa yeele markaa qof xasadid qof yeeshid wadnahaaga maanta dhan kaco qofka markaa maqashu waa xanaaqay qofkaasaa nacay balaayada marka waa garan kartaan qof maseersan iyo qof xasad labadu waa isku mid marka haddaa adi tahay allah naga soo wada hadeeyay hadda anaga nahay anigana waa ku jiraa aniga haddaa hadda idinka allah naga soo wada saaray ilaahan ka magan gala aniga alxamdulilah ilaahay maseertooy iyo xasad igama dhihin ilaahayo yaana kugu caasin alxamdulilah ilaahay nagama dhigo anaga dhan ilaan ciribteena mana qaaneen haddaa ka badbaadi beri kugu imaanaysaa ma garanaysa
marka maseerow iyo xasad ciribtiisana waxaa waaye aaqir qofka uga maseeraysa uga xasdaysid waxaa tusaale kugu filan nebi aadam wiilashiisii inuu midka kale ka maseeray ilaa uu u dilay haddaa maseerkaaga iyo xasadkaaga bato caafimaadkaaga hoos u dhigayaa aaqir waxaa noqonaysaa qof dadka oo dhibaateeyo qof dad dili karaa noqonaysaa haddii kaleeto waxaa noqonaysaa sixiro low dadka sixiro waa maseer iyo xasad unbaa ka keenay tallaabo waay marka naftaada adduunkana way ku silcaysaa aakhirana naarti jahanamo iyo zamhariire iyo meelaha hoose oo xunxun ayaa qofka sugayso adduunkana qofkuu ku silcayaa wuu ku ildarnaanayaa wuu ku rafaadayaa maxaa yeelay uqubada ilaahay oo dadka ilaahay laga gala ayaa kugu dhacayso ogaada mar walba aad dadka ilaahay nabadgelin oo dadka ilaahay dhibaataysid ilaahay ayaa ku caroonayo maxaa yeelay ilaahay ayaa iskale dadka ilaahay ayaa iskale ilaahay addoommadiisana wuxuu yidhi iidaaya anaa iskale diintii rabaan ha haystaan waxay rabaan ha haystaan waxba laguma dirsan haddaa wanaag u falaysid u sameey haddii kalena nabadgelyada wax ka weyn male ogaada qofka walaalkaa inta dhibaateen leed nabadgeli oo ka fogow marka walaashii dhismahaan waxay leedahay haddaad tahay maseertooy iyo xasad ka bax maanta haddaadan ka bixin adduunka aakhir tallaabada aa maanta joogta meesha maanta nolosha ka joogtid meel ka daranaa gaaraysa aakhir dadaad dilaysaa maseerka iyo xasadka dadaa loo dilaa idinka wax ma ogdiin midii kale waa dhiicaamo xunxun korkaaga ku baxaayo waxaa kugu dhacayo gabowga kugu soo degdegayo haddaa maseer iyo xasad badan tahay haddaa maseerka iyo xasadkaaga badan yahay gabowgaaga ayaa soo degdegayo waxaa kugu soo degdegayo muxuu ahaa kaleeto dhicaamo badan aa isbedelaya korkaaga xanuuno fara badan oo dhiig karka kolesteroolka hebelow meel kasta caafimaadyo fara badan oo jirkaaga aa dhib u imaanaya maxaa yeela maanta dhan dhiigkaaga kacay waa xanaaqaysa waa maseeraysa waa yeelaysa cuduradaas cuntooyinka keena xataa cuntooyinka qaladka la cuno wuu keenaa laakiin stresska waxaa la baaray cilmi ahaan markii la baaray stresska inuu uu ka mid yahay maseerka iyo xasadka waa stress korkaaga dhicaanka maseerka iyo xasadka waxay soo saarayaan dhicaankaasay soo saaraya stresska korkaaga ku badanaya markii waa xanaaqaysaa marka qof muu ogolid wax fiican in lagaa ficnaada ma rabtid laakiin markaa ogolaatay in lagaa ficnaan karo oo ilaahay wuxuu bixiyana raali ku noqotid ay adigana guulaysanaysaa dadka kalena guusha u ogolaatid ay adna guulaysanaysaa ilaahayna ku jeclaanaya mar walba risiqa ilaahay ayaa bixiyo wuxuu ilaahay bixiyana dagaal lama galeeno ilaahay wuxuuna siiyey ilaahay hanaga yeelo kuwa uu ku filan yahay oo dadka ilaahay nabadgeliyaa oo wuxuuda aan dhowrin allah naga yeelo maseerkii xasadka halkaas ayaa uga baxay haddee walaashii qaaliyey maseer badan tahay ama xasad badan tahay ka bax haddaa adiga tahay hadduu qofka la yahayne yuu kuu soo dhawaan iska ilaali tan labaad walaashin waxay idiin gelistay xanta iyadana waa wax aad iyo aad u xun maanta qur-aankeena ku sugan kitaabka qur-aanka kariimka allah subxaana watacaala ilaahayeena kariimka ee qaadir raxmaanka eh oo kitaabkiisa qur-aanka hadiyad nagu siiya maasha allah nasiib ayaan u helna maanta dad fara badan ayagoo raadiyay oo dabada ka dhiday oo rafaaday oo habeenuhu hurdi waayey oo ku dhalan ay heleen dad badan oo soo islaameen markay kaaga sheekeeyaan sidee kitaabka qur-aanka iyo diinta islaamka ku heleen dhib fara badan ayay usoo mareen reerahooda ayay uga go-een colaad fara badan iyo dhibaato fara badan iyo dulmi fara badan ay la kulmeen hadda ayay diinta islaamka heleen adigana ilaah hadiid ayuu ku siiyey waa diiday xanta marka caafimaadka markii la baaray dadka xanta badan waxaa lagu dhahay waa caafimaad daraa ku dhacdo caafimaad daro weli maskaxda ah maxaa yeelay waxay noqonayaan dad aan isku kalsooneen waa la baaray saynisyahanada baareen waxay dhahay dadka xanta badan kalsooni daraa ku dhacdo kalsooni daraa ku dhacayso waxaa ku dhacaysa naftooda hoos u dhacaya muxuu ahaa dareenkooda qof faraxsan oo kor u kacsan ma noqonayo qof maanta dhan hoos u dhinsan uu noqonaya maanta dhan uu noqonaya marka xanta ilaahay wuu naga manacay maantana saynisyahanadii waa baareen dadka gosibka ku mashquulsan oo maanta dhaxanta ku jiro waa bahdilnaanaysaa ilaahayna waa caasisay markastane ilaahay wuxuu kaa manacay samaysid oo dadka ilaahay aadan nabadgelininne ilaahay ayaa xuduudkiisa gudubtay ilaahay ayaa dagaal ugula jirtaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu ku dhahay dadkayga waaye dadka ilaahay ayaa iskale waa in dadka ilaahay loo nabadgeliyaa marka dadka ha xamanin ka labaad xanta ayaa inoo geliyay sunta xanta ah walaashii qaaliye iyo walaalkii qaaliye oo sunta xanta ah aan korkeena ka saarno aan ka baxno aan ka guulaysano anaga oo dhan xanta aad ayaa inoogu badan tahay maasha allah kan saddexaad sunta saddexaad waxaa noo geliyay qofka cabaadka iyo deerada badan qofka cabaadka iyo deerada badan waxa waaye haddaa adiga tahay ka toobadkeen markasta cabaadid aad ka deerisid noloshaada ilaahay ayaa ka dacwoonaysaa waxaana uga dacwoonaysaa dad binu aadane
waxbana kuma qaban karaan walaashii qaali haddaa xanuunsan tahay walaalkii qaali haddaa xanuunsan tahay hadduu waxsi kaa noqdo haddaa nolosha sidaa ratay ahayn adaa u malaynaysid ma ee sidaa tahay haddaa ku farxid hore ayaa u soconeed waxbaa ku hagaagi lahaa laakiin maadaama aa cabaad iyo dacwo iyo erey ilaahay ka dacwanaysa waa dhibaato walaashii haddaa adiga tahay ama walaalkay qofka oo muxuu ah qofka oo cabaadka iyo deerada badan haddaa adiga tahay ka bax haddaadan ahayn suntaas qofka ogow inuu ku baabi'inaayo uuna kugu daaranayo cudur la isku daartan yahay cuduradan 5 cudur ogaada waa cudur faafo sida cudurada oo la isku daarta camal oona la arkeynin oo wax fudud loo qaato oo laakiin adduunyada aakhiro ku siiyaysid marka haddaa tahay qof cabaad badan oona deero badan ilaaha ka deerisay kasoo noqo ayaan ku leeyahay ilaah u noqo kadibna suntaas korkaaga ka baxaysaa caafimaad ayaa helaysaa hore u soconaysaa fahmad ayaa helaysaa markii lagu dhaho wixii kaa halaa muxuu ahaan waxaas waxa uma alxamdulilah leh maxaa yeelay mar walbo waxa adig ku haystada wax ka daranaa jiro laakiin haddaa deeris way kaaga daray balaayada ka daran aa lagu keena ninkaaga haddaa ka deerisid ninka inta lagaa furaa nin kasii xun asay kasii xunaa lagu keenaa naagtaada haddaa maanta dhan ka deerisid naagtaada inta la iska furtida tu kaloo kasii xunoo musiibe qoorta lagu gelinaa marka deerada ka xishooda ilaahay aan ka xishoono anaga oo dhanba ilaahay aan ka xishoono nolosheena aan ku faraxno wuxuu ilaahayna si aan uga shukrino dadkan ayaana u cabaadin oo ilaahay ayaana ka dacwoonay dadka cabaadka iyo deerada badanne waa sun ka fogow haddii kale cudurkaas cabaadka iyo deerada ayay kugu daaranaya ayay walaasha islaam ku leedahay midda afraad waxaa noo geliyay suntaan midda afraad waxaa noo geliyay dagaalka iyo colaada badan dadka dagaalka iyo colaada badan dad ayaa arkaysaa maantana colaad ayay faafinaa colaada waxaa waa maxay colaad marka colaada waa qof dad dhexdood colaad dhigaan dad qof dadka isku diraayo qof waa wax ilaahay manacay subxaan allah idinka u fiirsada markasta wuxuu ilaahay manacay xuduudkaas haddaa ka gudubtid ilaahay ayaa caasisay kadibna adduun iyo aakhiro waa ku hoodaysaa adduunka kaaga filan buu waa ku silcaysaa marka colaad kasta aad abuurtid adiga ayaa wax abuuratay waaye adayna kugu soo gudoomaysaa maxaa yeelay ilaahay dadkiisa inaa colaad la dhex dhigo ma aha haddaadan adiga ahayn dadka colaada dadka dhex dhigo dadka colaada dhex dhigo waa inaad iska ilaalisaa maxaa yeelay ma harayaan ma toobad keenayaan maanta dhan colaadaas unbay kada wareegaya colaad marka waxaan ku leeyahay haddaa tahay dagaalka waa maxay dagaalkaas marka dagaalka ku idin sheegaa dagaalka waa qof ama gacan qaad badan qof caytin badan qof dagaal badan maanta hebelaayo la dagaalooya aduu kaaga sheekeyna laakiin beri aduu kula dagaala qof dagaal badan faa'iido male khasaarihiisa badan maxaa yeelay maantana intuu qofka kaloo la dagaashana kaaga sheegaya xataa adiga kuu sheegaya adiga dankuguma jirto qofka binu aadanka ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu maalintii waqtigeena wax ku qabsano horumar gaarno laakiin haddii qof maantana dagaal iyo colaad le ku jiro kor fadhisid asoo kala noqonaysaa dhicaamadaada jirka ayaa halaabaya kadibna waa jiro badnaanaysaa caafimaad fiicanna ma helaysid sidee caafimaadka fiican ku helnaa 5 sun kasika ayay ahayd qofka colaada iyo dagaalka badan waa qof aad looga cararo haddaa adiga tahayna ka toobadkeen ilaahay ku shukri dadka ilaahayna nabadgeli maxaa yeelay ilaahay dadkiisa daada nabadgelin ilaahay ayaa dagaal la gashay kadibna adduunka ayaad ku kadeedmanaysaa aakhirana zamhariira iyo naartii jaxiima ayaa dadka sugaysa allahuma najinaa ilaahay ayaan ka magan galnay allahuma ajinaa min annaar ilaahay ayaan ka magan galnay midii shanaad suntaan waxaa noo geliyay suntaan oo midii shanaad noo geliyay waxaan dhahay dadka waqtiga dilo maanta dadka waqtiga dilo sidee ku dilaan Soomaalidu dad fadhi ku dirirey tagaan fadhi ku dirirkii maanta markuu kaa waayay ninkan uu ku soo wacay kule war hebel maanta fadhi ku dirirkii waa kaa waayay fadhi ku dirirkii kuma dhahay baarkii hebel baar lagu leeyahay dadka waqtiga ka dilo inaa ka cararta haddaa adiga tahay dadka waqtiga ka dilanay waqtigaaga ilaasho dadkana waqtigooda u daa haddii ayaga kaa dilayaan waxaa dhahdaa walaal aniga meelahaas tabar uma haya shaahaas iyo baararkaas tabar uma haya leedahay haddaa qof dumar tahay ee dumarka kula rabaan inaa gurigaaga la imaado ama gurigooda tagtid waqtiga isla dilo iyada u sheeg waxaa leedahay aniga buugaagteeda aqrisanaa waxaan qabsanaa guriga markaa nadiifsado waa nasanaa cuntaa karsanaa waa danaysanaa dheh qof oo hadhowti hooyo daalan oo rafaadsan ma noqonaysid waqtigaaga haddaa ilaashatid hooyada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waqtigaaga markaa dhaqaalaysatid ilaah ayaa ku jeclaanaa ilaahay ma jecla dadka waqtiga ku cayaan 2 gurigaaga ayaa caafimaad iyo nabad ugu noolaanaysaa 3 horumar gaaraysaa ilmahaaga kala baranaysaa waqti ayaa ilmahaaga u helaysaa 4
shan qof caafimaad leh oo farxad ku noolaa noqonaysa horumar gaaraysa hore u soconaysa laakiin maanta dhan haddii lagu mashquuliyo naaga gurigaaga imaadaan ama gurigooda tagtay liis casimo jiko iyo cunto iyo waxa laga daba shaqeeyay uu lagu jiro adduunyada alaas laguma keenin kugu filan reerkaaga inaa cunto u karinaysa maanta dhan dadaa laga daba wareega cuntaa la karinaa intaa aadaynaa aroos hebelaa shalay la aadi maanta hebelaayaa imaanayso beri kale hebelo waa loo tagaa intaa laga dhaca aawi adi ilaahay maxuu ku keenay naftaadi maskiinta ahayd ee kugu jirtay lama sheekaysan naftaadi lama sheekaysan abaay naftaada lama sheekaysan abow baark intaa tegaysa nafsadaada la sheekayso idinka waqtiga la qasaariyo waxaa ogaataa caafimaad dara ka weyn male qofka binu aadanka oo muslimka ah oo mu'minka ah waqtigiisa ayuu dhaqaalaystaa waqtigaaga markaa dhaqaalaysidina horumar ayaa gaaraysaa caafimaad ayaa helaysaa waa guulaysanaysaa qof fahmad lahaa noqonaysaa adduunya aakhira waa guulaysanaysaa maanta bulshadeenu waxaa haysto markii la baarayna waqtiga dadka ku cayaaro oo wadamada ugu faqrisan dhan markii la tagay dadka adduunka oo adduunyada horumartay dadka ay u bixiyeen dunida saddexaad wadamadaas Afrika iyo meelahaas ilaa dadka ka yimaado waxa arkaysaa waqtiga aad u baabi'inaa waqtiga baabiiska ah baabi'inaynan waa waxa faqriga iyo colaadaha iyo gaajada inoo keeno qofku waqtigaaga qaali waa waqtiga maanta markuu ku dhaafo 1 daqiiqo ma soo noqonayso maanta markaa sheeko ku bixisid maanta markaa telefoon ku qasaarisid waqtigaaga markaa maanta dhan energy-gaaga telefoon ku qasaarisid maanta dhan markaa xan ku qasaarisid maanta dhan markaa colaad ku qasaarisid maanta dhan markaa dad isku dirow kala gaartid maanta dhan markaa wax xun ka shaqaysid ilaahay waa caasisay kadibna muxuu ahaa caafimaad darro ugu dhacayso waa niyad jabaysaa nolosha kaa halaabayso hoos ayaa u dhacaysaa fahmadaada hoos ayaa u dhacaysaa fahmada waxa kor u qaado inaa waqtigaaga gelisid waa inaa wax baratid inaa indhaha kala furtid danaysatid buugaag soo gadatid aqrisatid kaligaa fariisatid idinka ogaada nebiyadii ambiyadii dhan oo ilaahay uu soo diray dhan waxaa la dhahay waqti ay kaligood qaadan jireen markay waxay lahaayeen meelo yar oo ay galaan ay kaligood fadhiistaan ee iskula sheekaystaan ma ina isla sheekaysanay si caafimaad dare ah waxaa la rabaa si caafimaad leh inaad iskula sheekaysatid is xisaabisid dantaada raacatid oo ilaahay xisaabtiisa hortiisa ilaahay hortiisa intaadan tagin adduunka isku xisaabisid walaashii qaali iyo walaalkii qaaliyo qalbi u roonyaalo waa idin sheegayaa dardarankaygu waa waqtiga lama helo waqtiga ku dhaayo ku dhaafin ay walaasha ismahan ku leedahay waqtiga ku dhaafin horumarka adduunka ugu weyn waqtigaaga waa wax hadiyad ka weyn ma jirto waqtigaaga maanta sanadkii ku dhaafaa iyo saacadii ku dhaaftaa ma soo noqonayso laakiin wax fiican markaa ku bixisid wuu soo noqonayaa faa'iidadeeda hore ka helaysaa hore markaa u socotid sanadkaas faa'iido badan aad faa'iidayste waa helaysaa laakiin marka aad waqtigaaga qasaarisid oo telefoon ku qasaarisid oo sheekii cantar maqashi ku qasaarisid oo qofka aragtid uu waqtigaaga kaa dilo maxaa kuu soo haray dib u dhac waana helaysaa hore ayaa ka helaysaa haddana waqtigaaga qasaare caafimaadkaagu saameynayaa cimrigaagu saameynaa wuxuu saameynayaa noloshaada soo socota uu saameynayaa dib u dhac fara badan ayaa helaysaa laakiin waqtigaa ka faa'iidaysanaynaa anaga oo iswaaninayna oo waxa fiican halkaan walaashin ismahaadi kaga soo gudbinayso channelkeennii aa ugu magac taray toosinta garaadka iyo barashada xikmadda meesha waxaa ku baranaynaa waxa xikmadda ah iyo waxa sidee garaadka lagu toosiyaa 5taas sun ayaa idiin soo gudbiyay marka waxaan idin leeyahay walaalahay qaaliyaalo qalbi u roonayaalo kulanti kale iyo mar kale ismahaan barnaamijyo fara badan arrimo fara badan oo bulshadeena u baahan tahay in laga hadlo ayaa inoo soo wada marka waxay ku leedahay caafimaadkaaga si ku hagaago kor ugu kaco caafimaad fiican ama haddaa rabtid waa in 5tan sun hadda adiga taa ka baxdid hadduu qof yahow noloshaada ku jirana iska ilaalisid qofka dhahda aniga kuma jiro diidid si caafimaadkaaga kor ugu kaco oo u guulaysatid adduunya aakhiraba waxay ku leedahay walaasha ismahaan subscribe like and share والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.